kulanti waxaana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhabka hadal barnaamijka qaybtan waxaan ku eegaynaa dagaaladii maalmihii u dambeeyay ka socday galbeedka gobolka City waxaynu si gaar ah u eegi doonaa xogihii iyo wararkii ugu dambeeyay ee dagaal maanta ku dhaxmaray magaalada Garbaciise oo aad u kharaara kaas oo u dhaxeeyay ciidamada gaarka ah ee dawladda Soomaalida iyo waliba shacabka galbeedka gobolka City oo isgarabsanaya iyo waliba maleeshiyada canfarta waxaan eegi doonaa dagaalkaasi iyo waliba natiijada ay ka soo hoyeen ciidanka gaarka ah ee dawladda Soomaalida iyo shacabka isgarabsanaya ee uu ka soo jeeda galbeedka gobolka City oo maalmihii u dambeeyay dhibaatooyin farabaan ay ku hayeen canfartu waxa dhinacayga midig fadhiya jaamac galad isaga ayaan wax ka weydiin doonaa dhowr iyo 10 daqiiqo ee fooda lagu soo hayay xogta la xiriirta dagaalka kharaara ee maanta ka dhacay magaalada Garbaciise jaamacow bal soo dhawow Garbaciise iyo galbeedka gobolka City maalmihii u dambeeyay dhiila laga soo sheegay dad badan oo shacabkii Soomaalida halkaas ku dhaqana ayaa dhibaatooyin far badan loo geystay qaar ba xiriirihii dawladda waxa weeye iyagoo la fooda badbaadinaya xiriirihii ciidanka militariga oo iyaga aan khayr laga rajaynin galay bal maxaa u dambeeyay maanta seesaa waxay u dhaceen بسم الله الرحمن الرحيم جود هون سلام يا أمد الصوماليات ملك استوى الشوغان بقى وحنا سلام الله عليكم هرتلك عصب مركز ديلا في حالة الجود القلبات كقبل كستي مع المهن أردن بديواتي مارتي عكريد حسوق أرحن دردا هي دباتوين كماركت استبتشوجا أي ميليشيات كمامل كعنفرت عيد مدى ميليتري إثيوبيا أي كوهين waxaan jeclahay inaan shacabka Soomaaliyeed yaani aan u xaqiijiyo dhibaatada galbeedka gobolka City ma aha mid canfar ay wado waa mid dawladda dhexe ee dalka Itoobiya ay maartay wado weeyaan oo maxaan ku dhahay iyadu ay sabab u tahay wax waliba sabab buu leeyahay sababta mashaqada ka aloosan galbeedka gobolka City ma aha canfar waxay wadataa magaca iyo maartay ficilka la fulinayo oo ay qayb ku leedahay weeyaan laakiin dhibaatada inta ugu badan masiibada meesha ka jirta waxa wada waa militariga Itoobiya weeyaan marka canfar waa gardarro garab og ma waa gardarro waxay wadataa wixii dawladii militariga hay'adda dalka Itoobiya iyo waxadii oo dhan bay wadataa wasiirkii ra'iisul wasaarihii wasiir ku xigeenkii baarlamaankii taliskii ciidanka taliyayaashii meesha joogay dhamaantood waxay garab iyo gaashaan u yihiin canfar waxaan garan waayay marka waxa canfar laga sasabanayo oo saaran maxaan ku idhaahdaayo girgira dushii bay saaran tahay canfare shar wax khayr Itoobiya kuma soo kordhiso shilin lacag laga ma helo maxaan ku idhahdaa canfarta oo maxaan ku idhahdaa canshuur dawladda Itoobiya kama hesho dhaqaale kale kama hesho waxay saaran tahay canfare waa girgira dushii oo girgira waxa uu la saaraa Soomaaliya dab weelasha wax lagu waxay baa la dul saaraa canfare meesha degan tahay dhulka ay degan tahay waa girgiraw waa dhul shoolad ah oo maxaan ku idhahdaa qaac ka baxayo marna fulkaana ka qarxo dhulkii Soomaalida oo maxaan ku idhahdaa wax walba oo ilaahay ku manaystay oo de wax alla looga mahdiyo alxamdulillah rabbil caalamiin beertii iyo khudaartii iyo xoolihii noolaa geeska Afrika meesha ugu xoolo badan way deegaanka Soomaalidu dhul beereedka sidoo kale maxaan ku idhahdaa wax balaaye ka degan axmaare iyo qashin kale oo la soo aruuriyay ku nool deegaanka Soomaalida ma maleyn kartid de macdanta iyo khayraadkan kalena waa iyaguna waa gooni dhulka intaasi oo dan ah Itoobiya ay ku qabto ama rajada ay ka qabto meel cidla ah oo shoolad ah oo karaysa oo dadkeedii iyo dunyadeeda midna aan waxba laga dheefin iyo 24 saac uga helinaysa waxay marka taasi cadeynaysaa meeshan qayliyaysa maxaan ku idhaa qalalanna inay tahay meel Itoobiya ay leedahay oo dhul Itoobiya loo aqoonsan yahay kana dhul cadow loo aqoonsan yahay Soomaalida marka fahankii baa ka maqan nin weyn oo Soomaaliya oo Ilaahay abuuray oo samac iyo basar leh oo laga yaabo 60 sano 70 sano inuu jiro wuxuu ku leeyahay annaga Itoobiyaan baan nahay
dadkan marka waxaad dhihi markaad sii fiiriso caqliyada iyo qaabka iyo sida ay maaragtay wax u fahmaan Etoobiyaanku markuu ku rabo ee adiga uu wax kula rabo ee ugu yaraan haduusan wax kula rabin xitaa uu maaragtay si uun bini aadanimo ku jirto oo kula dhaqmayo markaaba waa isu dhajin kartaa laakiin mid uu ku dilayaa wuu ku dhacayaa biduuni sabab wuu ku xirayaa biduuni sabab waa lagu barakicinayaa sabab la'aan cid kasta oo isqabataan baa lagaaga heelinayaa inaad Soomaali tahay wax kasta oo dib ana waxay dadka Soomaalida ugu dhacayaan waa magaca Soomaaliga weeyaan marka dhibaatada dadkeena bay ka taagan tahay soo lasma dhigi karo marka Soomaalida Ethiopia marka waxay rabtaa wax iska celiyo bay rabtaa wax kale ma rabto nimanka canfarta ah ee meesha jooga wax loogu xilanayo ma jiraan laakiin Soomaaliland cayb baa maaragtay dibkan loo wadaa say dooniba ha noqoto waxaad moodaa Soomaalidu waxa ay yihiin iyo waxa laga aaminsan yahay inay aad u kala fog yihiin waxaan filayaa wax ay wax ku arkaan inay arkeen oo ay wax ku qaataan maanta inay arkeen oo militariga Ethiopia haduu hooyooyinkii Soomaaliyeed yiri xitaa xariihii militariga idin ku badbaadin meena dhaafa canfar meesha banaanka idin ku dishay oo xirada dhexdeeda inta canfare oo ugu gashay ay hooyooyin ku gowracday iyo caruurtoodii oo hooyo la gowracay oo maxaan ku yiraahdaa to laba gabal laga dhigay ilmihii ay wadatay iyadoo meeyda laba maalmood u nuugayay xirada ciidanka dhexdeeda masiibo ka weyn ma jirto runtii waa waxyaabaha maaragtay ajaa'ibta la weeyaan haddana Soomaalidu wali ay taagan tahay dad Ethiopian baana oo nin weyn oo Soomaali uu ku dhihi anoo Ethiopiana ama waxaan nahay Ethiopian marka waa iska masiibooyinka socdo weeyaan waa tahay aad ma santahay jamcu marka laga hadlayo canfar iyo Soomaali waxa la dhahaa waa dad isku mid ah ayaa la dhahaa oo wax u dhaxeeyo hadda farqi weyn ma jiro xoogaa waxay u baahan tahay in baa la dhahaa meeshan in maartay xal siyaasadeed oo maartay qoto dheer laga gaaro marka la fiiriyo ishaysadkan iyo dagaalkan waxa weeye iyo waliba in la kala xigsado waxa weeye Soomaali iyo canfar oo dawladda canfar ay la dhinac tahay ma la isdhihi karaa dawladdu Soomaalida waxay u aragtaa dad khatar ah oo haday xoogeystaan Ethiopia maartay cadow ku ah horta xaqiiqda marka laga hadlayo Soomaali iyo canfar waa isku mid wax farqiga u dhaxeeyo male waa beel Soomaaliyeed oo afka bedelatay canfartu wax si buuran ma aha ilaahay intii uu meesha ku wada abuuray labada bulshada canfar iyo Soomaali ama beesha Ciise iyo canfar inta uu isdilahayeen qaylana kama dhaxyeelin dhul canfareed dhul Soomaaliyeedna canfari ma hunguriyeyneen deegaankana waa la wada deganaa dibna kama jirin arrintan arrin siyaasadeed weeyaan ma aha wax maaragtay to iska yimid waa arrin siyaasadeed weey waa arrin dawladda Ethiopia ay qaadatay waa arrin xadiidka iyo maxaan ku yiraahdaa laamiga ka yimaada Djibouti la doonayo Soomaalida ugu yaraan 100 kilomitir in maaragtay laga fogeeyo si adiyada sababtoo ah marnaba Soomaalida lama aaminayo sida daraadeed canfar waxay noqotay dadka kaliya ee loo adeegsan karo oo loo isticmaali karo sababta marka ciidankii canfarta loo hubeynayo oo zuuga iyo tarantasta loo siinayo iyo shilkaha afar dhuumoodka ah loo siinayo ciidankii Soomaalidana looga ilaaliyo mar alaali markii wax dhacaan canfarta la baacsa canfar iskama celin karto qayb kamida maxaan ku yiraahdaa beesha Ciise shacabka beesha Ciise qayb kamida yani canfar oo dhan haday isu timaad iska celin karin xaqiiqda laga hadlaa moogtahay waa run canfar waa dad dagaalyahan weeyaan laakiin marka la fiiriyo bay'ada iyo qaabka iyo maxaan ku yiraahdaa to warriornimada waxa weeyaan Soomaalida kaga horeysa canfarina waxa weeyaan way soo raacaysaa labada qolo waligood way isla deganayeen waligoodna way isdilahayeen noloshoodiina Soomaaliya canfar kama soo cabanin hatta yaani beesha Ciise oo dhan lama dirireynin qayb yar oo kamid ah inta uu hadda ay soo barakicinayaan yaa awal hore iyaga barakicinayay laakiin militariga Ethiopia iyo ciidan ay hubeeyeen oo tiknika iyo gaadiid siiyeen oo maxaan ku yiraahdaa 10 kilomitir badaha ka soo ridaya yaa dadkan soo barakicinaya marka waxaan waa qorshe siyaasadeed oo la doonayo Soomaalida in lagaga fogeeyo jidadka muhiimka ah ee Ethiopia ay wax u soo maraan ee jidkan laamiga ah ee hadda dhalinyaradu ay gooyeen iyo xadiidka labadiiba dhulku waa bartamaha deegaanka Soomaalida waxay rabaan marka ugu yaraan 100 hadda eeg galbeedka gobolka City degmooyinka Cundhufu Cadeytu iyo Garba Ciise iyo Alale iyo maxaan ku yiraahdaa to dal la helay iyo markii la yiraahdo Soomaalida ka durkaan meesha u durkaan baa hadana rabay in looga daba imaado oo hadana la yiraahdo 40 kilomitir oo kale guura
oo maxaan ku dhahay deegaamada halka ku jira waa maalinka dambe in afdam la yiraahdo waxa la canfar sababtoo ah canfar halis kuma aha Ethiopia laakiin afartan qof ee meeshan degan laamiga area degan Soomaalida ah Ethiopia waxay u aragtaa masiibo meesha degan أنا صور أنا مركز دجال كي ما أنت محد عن مركز ما المهم قدام وانو جين شعب قاعد على يندوا تبدن باللوج جيستي دولة ديان كوال إيدين يو حلا شعب كي وحوي كعمة سنة دولة ديان كوال إيدين ما هو لي ولا تشفي سما أنقر صوب باص كذا مركز جبته أي باص كذا كسر بيحوي الدولة جاء وحويا وإن لا حساب تمام وإن لا عنباريو لا دلعيو تطبع واحد كلا إسكت عدعيو أو إن ماركت حوجا عن كوك عصرنا هاي مايا وعن كوك عصرنا هاي وديدنا هاي ضعف النماذج يسليد ده أنا وحنا مدحوينه إنه نقول مدحوينه اللي جاي بيست مركي توبي للشو ويسوي ضد كفرت أقوياء وسير كأنه حنا ربا مركو تاجو أدي سببا إنه وسير كأود بدن أرما يا أحمر يا عنفر بقولنا نقضه أو وسير صوماليا أو اللي جاي بيست إنه نقدر ربنا وحنا ربنا أنا معمول عن لنا هاي إنه نقضه دولة الديان كصوماليا مت أنا عن لنا هاي أو دناها أنا كشقيسة أو دناها الشعب كصوماليا كشقيسة إن نقطارنا مركي لكن الأركي ولا عنبارين ولا إيدين ولا دليل ولا عايرين وليبة مركا دولة ما أنت إن طلابة ونكسب بقاضي شعب كديان كقبل كستي يجونا طلابة جيسين ما لها قاضين وحن هل كان وجاهم بلينا يا دمام با شعب كصوماليا ده كده كان قبل كستي وأن لا هي وأن نقرب تاجنا هاي هداني دين كفوقنا هنا قلوب تنادا يا ذي اللي شرته وحويان مركا ciidanka deegaanka Soomaalida iyo shacabkii gobolka City oo iskaashanaya yaa maanta waxa weeyaan ay isfarasaareen nimankii wada cali baa leeyahay nimanka mugtahay wada cali oday cali miyaa bas wax noocaas marka magacyada cali u badan miyaa waa wada cali iyo mirx iyo wax aan la aqoonin umadan marka dagaal kharaad baa meesha ka dhacay saaka la isku kalahay dagaalku masaafo badan yani muddo dheer buu socday magaalada Garbaciisa ahayd waxaan hadda xaqiijinaynaa in maaragtay masaafo ku dhawaad 30 kiiloomitir in canfar laga baacsaday in meydkoodii askaaxda yahay oo wixii ay Soomaali u geysteen haween iyo caruur iyagu laayeen oo xasuuqeen in saddex jibaarkood oo kuwii soo duulay ah ee daalimiinta ahaa waa muslimiin canfartu kuma aha inaan ku faraxsanahay laakiin waa daalimiin weey waa daalimiin daalinkana waa la iska celiyaa qofku markuu ku dulmo ee uu naftaada iyo dhulkaaga iyo cirdigaaga uu kugu yimaado waa la iska dhacshaa canfar maanta waa la iska dhaciyay waxayna qaadatay 10 ku filan ma se istaagayso canfar ma soo noqoteen muddo 10 goor baa 10 loo dhigay canfar ma soo noqoteen Ethiopia daba ka soo wada maalin walba inta hub iyo rasaas la soo siiyo baa la dhigay orday cunduf iyo cadaytu iyo weerar Garbaciisa سمع كعب القاتة مركب واحد عاية. تمام ولا سو هدي حق سو آدي ويان. هي نفس القطع شعيل بدن الله ما قابو موقت. آدي. مركب يقال آدي. هل لي أنا يسوي سكين علين والله ودوا عيسان. هديك لو واحد قاتي أرض. آدي. أفرد العباء عيسى هي ماشي شوكته. عائلية ليو بوليس كنا أنا يديك علين لي. وأنا الرم ولا جا عليا ليو بوليس كم. ما أنا هو بالليو بوليس مركب جرو. بحالي 100 كيلومتر دي بجورة. هذا المغلي اللي يبوليس واحد شو كان محنكو يراهدايتو ان افدم iyo maxanku yiraahdaayto iyo dambal iyo waxa la geeyay halka iyo meelahaas laga tuuray baad maqlay 100 kiiloomitir 200 kiiloomitir baad dib loo qixini marka waxa weeyaan maanta dagaal culus baa dhacay dagaal kharaad baa dhacay waqti badan qaatay muddo dheer ay iyaguna isdifaacayeen hubka noocyadiisa kala canfar madaafiic adeegsanaysa madaafiic ciidanka militariga Ethiopia ay lahaayeen ee la rabay jundaaga lagula dagaalamo yaa waxa lagula dagaalamayaa hooyooyinkii iyo caruurtii Soomaaliyeed madaafiic waxa laga soo duqeynaya 30 kiiloomitir madaafiicda goobta la yiraahdo waan malaynayo carra dhan lagu maaragtay burburinaya la rabaa in lagu maaragtay dhulkaasina waa banaan oo waa dhul banaan oo maxaan ka dhac ka dega ah meel banaan iyo meel buuraha kore iyo waa dhul maaragtay siisu waa dhul dagaal weeyaan dhulku marka waxa weeyaan waxba yaan hadal kugu daalinin canfar maanta duruus ku filan way qaadatay Garbaciisa 100% waa xor 100% waa xor meydkii
iyo dhaawacii canfartu ay ka cararteena hareeraha iyo nawaaxiga magaalada garbaciisu daadsan yahay waxa weeyaan marka waa guul ballaaran weeyaan waa dad walaalaheeno muslina oo la khalday ma aha inaan ku faraxsanahay dhiigooda waxa weeyaan wiilka canfariga iyo wiilka oromada ah way naga xigaan Etoobiyaanka kale dad isku dhiiganahay dad isku dhaqanahay dad isdhalay baan nahay dad isku dhex jiraanahay Soomaalida iyo maxaan ku dhahay oromada lama kala yaqaano dariska ee isla degan canfarta iyo Soomaalida sidoo kale lama kala yaqaano waa mid walba golxub wata ilkuhuna waa u qoran yihiin Soomaalida dariska la canfarta iyo canfartaba Soomaalida garan labada maray cadaydna waa wada xambaarsan waa wada wataan oromadana sidoo kale oo nin walba bahalkiiba meesha lagu jiray iyo Soomaalida waa dad isku dhaqmay oo isla dhaqmay oo dhib iyo dheef waxay iyagu isla qabaanba daris ah oo wada joogay oo walaala ah weeyaan kala guursanayo xidid iyo xigaalba ah wax walba wadaagahay weeyaan masiibaas ka dhex adeegtay ina marka maanta aan dhahno canfar baa laga xoreeyay garbaciise runtii ma aha wax yaani maartay damiirka qofka muslimka ee Soomaaliga ah wax u roon ma aha oo u wanaagsan ma aha sababtoo ah markay Itoobiyada kala noqoto saddexdeena bacdo baa leeyahay wiilka ahmarka ama maxaan ku yiraahdaa dhabuubka qoladan la yiraahdo ama waxyaalaha kale oromada iyo Soomaalida iyo canfarta isku si uu arkaa laakiin way yar kala xigaan oo markii Itoobiyaanimada la yiraahdo qolyo loo ogol yahay baa jira oromada kale waa loo yar ogol yahay Itoobiyaanimada laakiin aad maaragtay looguma si ogola oo maaragtay markay Soomaaliland waa maaragtay haldado oroma ah baa la dhihi laakiin markii la yiraahdo Soomaalida way ka yar xigsadaan haddana saas ay tahay inagii baa isku dhaqana inagii baa isku dhiiga inagii baa maaragtay iska xigna inagii baa haddana cadow la isaga keendigay marka waxa weeyaan anoon ku faanaynin maanta wixii canfar ku dhacay haddana way mutaysteen ilaa iyaga dulmiga waday ha kuma faanayno laakiin way mutaysteen sababtoo ah ayaga dulmiga waday oo iska garan waayay maalin walba inta dabada laga soo kaxeeyo in la yiraahdo ordada dumarkii carruurta weerara liyu booliska anaga idinka celinayne bini aadanka ilaahay aqliga wuxuu siiyay wax ku garto markay mar la jabiyay ee mar saddexaad la jabiyay Samaara kuma qaadanayso ciidanka deegaanka Soomaalida maalin gelinkeed kuma qaadanayso caasimada deegaanka canfarta inay tagaan ha one day kuma qaad half day kuma qaadanayso taasi oo ay tahay haddana fahmi la ay yihiin cududda ay hayaan cududda ay canfar is hayaan waa tii Itoobiya oo dhan galgashay waa tii Itoobiyaanka 24 saac ay reer galbeedku u taageerayaan way waa tii iyada Soomaalida la yiri si kale looga adkaan kara ma jirtee iyada la isku jabiyay liyu booliskan loo abuuray Soomaalida garan Soomaalida marka iyagii dhexdoodii aan maxaa la isu isticmaalaynin oo iyadii maanta mucaarad iyo muxaafad aan kala lahayn wada Soomaali ah wada muxaafad ah ciidan Soomaaliyeed oo ka dhex dagaalamay deegaanka Soomaalida uu jirin inay inta isku taagto ay haddana ku tala gasho inay nabad ku joogto maamulkeena laga arkay hadduu maamul kulul yahay oo wax qabanaya oo dadkiisa haba u xumaaday ee cadawga ka celinaya waxyaalaha aan maaragtay la yaabo waxa kamid ah wiil kamid ah bulshada garbaciise yaa wuxuu yiri intii Mustafa joogay buu yiri Cabdi ilay buu ninkiina dhiibay buu ahaa buu canfar nagu wareejiyay haddana saas ay tahay buu yiri hal maal yaani shuruud iyo heshiis baa la kala sameeyay buu yiri ciidanka canfarta xuduudda deegaanka canfarta iyo deegaanka Soomaalida deegaanka la bixiyay yaani 30 kilomitir askari canfar hadduu soo gaaro liyu boolis duulaya ugu tagi jiray meesha balse askarta canfarta inta la soo xirxiro yaa waxa lagu soo xirxidayay maxaan ku dhahdaa garbaciisa iyo cunduf iyo cadayto iyo maxaabiis la keenayay waa kuwii hadda deegaanka wareejiyogo yaani dadka amnigiisa iyo noloshooda way ka warqabeen buu haba wareejiyaane oo xas deegaanka dhibaato kama jirin maalinkii kuwii la cayriyo Mustafa meesha yimid baa xabad iyo dagaal lagu bilowday buu wax naga difaacana aan arkin marka يعني بالنصيب درو إن الشعب كالصوماليات دي قلبا قلبا أوفعلت موقت قلبا ميلبا أوفعلت موقت هدو قلبا قار أدرها مامور كاسي كون ويكما هالشيغانا يعني سواء قرن لكن اسم الله هين ضد بقى وحيصية وما ركتاي تمامل كي إن TPLF يضد كل شيء قيسني يضد صوماليا أنت وحيسان يديه كاسان نود اسم الله هين لكن وين عضي هذا وحنا كل عضي حمان تمامل كان